السلام عليكم أصحابتا وحدان channel كيغا يوتيوب عابي official channel فضلا هدان نوع عصب تاي سبسكرايب سار هدان هورينا وجوتين واد مهاتسان تاي waxaan idin soo gudbin doonaa 7 waxyaabood oo haddii aad samaysid aad noqon doontid guuleyste qodobka koowaad ku xidhnow xadhiga alle dadka aan ku fiicnayn cibaadada iyo xadhiga alle inta badan ma guuleystaan adkee xadhiga adiga iyo alle idin dhaxeeya qodobka labaad samayso riyo ama yool dadka aan lahayn hami ama riyooyin ay ku hamiyaan ma gaadhaan wax guul ah midaas casigeeda dadka dejista ajendayaal ama yoolal nololeed waxay gaadhaan guulo wax ku oola qodobka saddexaad waqti go'an si maalin walba hamigaaga ugu yaraan 5 daqiiqo maalintii waxay wax ka bedelaysaa hamigaaga iyo xiisaha aad u qabtid gaadhista yoolkaaga si joogto ahna u samee inaad ka fikirtid ka miro dhalinta riyooyinkaaga qodobka afraad riyo ka dhigo shay aad xiisaysid waxa aad riyada ka dhiganaysid waa inuu yahay shay aad xiisaysid ama aad ku wanaagsan tahay tusaale ahaan waxaad ku fiican tahay maadada xisaabta waa inaad dhigataa culumta xisaabaadka ku tacalluqa qodobka shanaad u arag si togan naftaada dadka guulaystay ee dunida soo maray waa dad naftooda ka aaminay inay wax walba qaban karto halka dadka guuldaraystay ay aaminsan yihiin inay wax walba adag yihiin ama aanay qaban karin qodobka lixaad mar walba raac dadka guulaystay waayo waxaad ka faa'iidaysaa fikrad ama aqoon aanad hore u haynin qodobka toddobaad ha ka biqin guuldarrada waayo mar walba oo aad ka cabsato inaad fashilmato waa mar walba oo aad ka fogaato hamigaaga waxa hubaal ah daawade haddii aad qodobadan si sax ah u raacdid inaad guuleysan doontid insha Allah waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan fadlan haddii aanad weli subscribe noo saarin dhac ku sii oo halka cadaan nooga dhig like-tana ha naga hilmaamin waxay noo tahay dhiirigelin